asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatuhu galab wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa galabnimo jimcaha bisha nofembarna waa 10 sanada 2023 qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaal la soo sheegay inuu ku dhex marayo duleedka magaalada laascaanood ciidamada somalilan iyo kuwa khaatumo iyo xogihii ugu dambeeyay naga soo gaaraya dagaalkan iyo iska horimaadkan xoogan ee laga soo warinayo mar kale duleedka magaaladaasi laascaanood ayaan soo qaadan doonaa iyo weliba ciidamada somalilan oo la sheegay in ay guud ahaanba haatan baadigoobayaan dad la sheegay inay kaxaysteen ama guud ahaanba ay qabsadeen ciidamada khaatumo iyo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya dagaaladaasi ayaan soo qaadan doonaa xilli maalmihii ugu dambeeyeyba ay dagaallo xoogani halkaasi ka dhacayeen khasaare ballaadhanna uu ka dhashay iyo maxaabiista ay qabsadeen ciidamada khaatumo ee lagu soo bandhigay magaalada laascaanood oo xogo kala duwan sheegay islamarkaana guud ahaan haatan ay somalilan kasoo saartay jawaab kulul oo ku aadan guud ahaan warkaasi kasoo baxay maxaabiista lagu haysto magaalada laascaanood iyo israel oo xabajoojintii laga bariyey haatan khasab ku hirgelinaysa kadib markii ay guud ahaan ciidamadeedu la kulmeen dhibaatadii ugu weyneed iyo weliba dhimashadii ugu badnayd maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ay isku dayeen weerar dhanka dhulka inay ku qaadaan marinka khaza haatan waxay ku dhawaaqeen xabad joojin iyo weliba in ay dagaalka joojinayaan iyadoo guud ahaanba wadamo kala duwan oo caalamka ay israel ku qancin waayeen horay in ay joojiso duqeymaha iyo dagaalka ay ka wado marinka khaza balse haatan waxa ay wararku tilmaamayaan in xaqiiqada dhabta ah ay halkaasi kala kulmeen haddaba maxaa ku dhacay ciidamada israel oo haatan ku khasbay iyo weerarkii ugu dambeeyey ee ku khasbay ciidamada israel in ay joojiyaan guud ahaan dagaalka ay ka wadeen marinka khaza ayaan soo qaadan doonaa iyo kulamada magaalada riyaad uga soconaya madaxda muslimiinta iyo weliba madaxda inta badan wadamada carabta ayaa looga hadlay arrimo xasaasi ah oo falastiin ku aadan soomaaliyana waxay halkaasi ka dhigaysaa taariikh cusub qodobadaas iyo qodobo kalo faahfaahsan ayaad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in dagaaladu ay weli halkaasi kasii soconayaan maalintii saddexaad ayaa la sheegay in ciidamada somalilan iyo weliba kuwa khaatumo ay ku dagaalamayaan duleedka magaalada laascaanood haatan waxa ay wararku tilmaamayaan in somalilan ciidamadeedu ay si rasmi ah guud ahaan dagaalkaasi ugu jiraan xalay ayay ahayd markii ay soo saartay somalilan war ku aadan dagaalka ka soconaya deegaanka boqdharkeyn balse waxaa haatan la sheegay in boqdharkeyn la isla dhaafay oo guud ahaanba dagaaladu ay soconayaan oo ciidamada somalilan cutubyo ka mid ah ay si rasmi ah uga qayb qaadanayaan duulaankaasi walow ilaa iyo haatan lasoo tabinayo in militariga somalilan aanay guud ahaan wadagelin weerarkaasi ama dagaalkaasi ayaa haddana waxaa guutadan ay tahay mid ka mid a guutooyinka sida gaarka u tababaran ee ciidamada somalilan ka tirsan waxaana ay garab siinayaan dadka deegaanka ama maleeshiyada deegaanka oo dagaalkaasi iyagu sheegay in ay hormuud ka yihiin somalilan haatan waxay u muuqataa inay qaadatay istaraatiijiyad cusub oo ah in dadka deegaamadaasi iyagu iska difaacaan khaatumo iyo weliba ciidamadooda oo iyagu laftoodu intooda badan ku dagaalamaya qaab qabiil waxaana haatan ay rabaan in somalilan iyaga laftooduna ay ku dagaalamaan qaab qabiil taasi oo lagu sheegay inay tahay mid xaaladda sii xumeyn karaysa islamarkaana nabad deegaanadaasi ka dhacda ay noqon karayso mid aada u adkaata xitaa mustaqbalka dhow waxaa ilaa iyo haatan la sheegay in khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalka ka soconaya deegaanka yeyle iyo sidoo kale boqorarkeyn inta udhexaysa haatan waxa ay wararku tilmaamayaan in halkaasi ay maanta isku fara saareen cutubyadaasi ka midka ciidamada somalilan oo ay hogaaminayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolkaasi sool oo dhanka somalilan ah iyo weliba guddoomiyihii degmada caynaba iyo mas-uuliyiin kale oo somalilan ay usoo magacowday gobolkaasi sool ayaa la sheegay inay haatan dagaalkaasi hormuud ka yihiin mas-uuliyiinta intooda badan waxay ku sugan yihiin deegaanka boqdharkeyn oo ay halkaasi ka hogaaminayaan dagaalka oo ahaa halkii uu ka bilowday dagaalkii xooganaa ah ee ilaa iyo haatan soconayaba ee dhex maraya somalilan iyo sidoo kale khaatumo waana halkay isku fara saareen ciidamadii maleeshiyada deegaanka iyo weliba ciidamada khaatumo oo maleeshiyadu ay sheegeen inay weerar kusoo qaadeen si kastoo xaalku hadaba weli waxaa soconaya duulaankaasi xilli ay khaatumo soo bandhigeen qaar ka mid a maxaabiistii ay dagaalka ku qabsadeen waxaana ay maxaabiistaasi qaar ka mid a sheegeen inay ka mid yihiin ciidamada somalilan inkasta uu somalilan dhankeeda war ka soo baxay lagu sheegayo in dadkan ay khasban yihiin islamarkaana xeerarka u yaalla caalamka ay ka mid yihiin in aanan waxba laga dhegeysanin qof la haysto ama guud ahaanba maxbuus ah wax walba oo uu sheegana ay yihiin wax uu guud ahaan qofka gacanta ku hayaa uu isagu yidhi ama isaga uu soo dhex mariyey weli dagaaladu waa ay socdaan islamarkaana xiisadu waa ay sii xoogeysanaysaa waxaana
Somalilan oo baryahan la sheegay inay soo diyaarinaysay islamarkaana dooneysay inay dib ugu soo rogaal celiso deegaamadaasi ay haatan carcar cusub ka wadaa deegaamadaasi oo ay rabtaa inay dib u qabsato deegaano hor leh walow ay wararka qaar tilmaamayaan in Somalilan xilligan aanay diyaar u ahayn inay weerarkaasi ku gaadho magaalada Laascaanood ama guud ahaanba weerarka uu noqdo mid si ballaaran ay Somalilan ugu soo diyaar garowday. Somalilan ayaa la sheegay in weerarada ay diyaarinaysay wixii ka dambeeya doorashooyinka Somalilan kusoo fool leh haatan ay dooneysay in guud ahaanba halkaasi lagu kala sugnaado. Waa sida xogaha hoose ee laga helayo Somalilan ay sheegayeen, balse haatan xaalku waa isbedelay oo dagaaladu waxa ay dib ugu soo noqdeen gobolkaasi Sool walow dhankooda xitaa ay sheegayeen Khaatumo in aanay diyaar u ahayn weerar iyo dagaal. haddana lama oga waxa rasmiga ah ee sababay dagaalkaasi inuu ka dhaco deegaanka Boqortooyo. labada dhinacna waxay isku eedeeyeen in ay guud ahaanba dhinaca kale uu soo weeraray. Wararka qaar ayaa tilmaamaya in taliyaha ciidanka militariga ee Somalilan oo haatan ku sugan degmada Og iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha ee Somalilan oo isaguna la sheegay in maalmaha soo socda ama guud ahaanba saacadaha ay nagu soo aadanba uu soo gaari karayo deegaankaasi oo halkaasi oo ciidamada Somalilan haatan u ah saldhigga ugu weyn ee ay ka duulaan. waxaana soo baxayay warar kala duwan oo sheegaya ama cabashooyin kala duwan oo kasoo baxaya dadka degan deegaankaasi Boqortooyo oo iyagu ka cabanaya weeraradaasi joogtada ah iyo weliba dagaalkaasi haatan kasoo cusboonaaday aagaasi iyo in ciidamada militariga Somalilan aanay meelahaasi ku sugnayn. inkasta oo qaar ka mid ah guutooyinka ciidanka militariga Somalilan ay haatan soo gaadheen deegaankaasi dagaal adagna ay ilaa haatan ku jiraan. Somalilan ciidamadeedu waxay fulinayaan howlgallo kala duwan waxaana la sheegay in iska horimaadyadu ay yihiin kuwo guud ahaan joogto ah. maanta oo kaliya waxa ay wararku tilmaamayaan in dhowr iska horimaad ay dhex mareen ciidamada Khaatumo iyo sidoo kale ciidamada Somalilan dhulka fog ee baadiyaha. waa tahay haatan aan eegno waxaa Israel sanka looga muday islamarkaana ay ku khasbanaatay in ay ku dhawaaqdo xabad joojin iyadoo baryahanba lagu kari lahaa inay xabad joojin ka sameyso marinka Gaza. wax ka badan 10,000 oo qof ayaa ku dhintay oo shacab ah marinka Gaza kadib duqeymihii iyo weliba guud ahaan dhibaatooyinkii ay Israel ka geysatay marinka Gaza, balse waxa ay isku dayeen tallaabo ay doonayeen inay ku galaan marinka Gaza gudihiisa waxaana taasi ka raacday guud ahaan dhibaatadii ugu weyneyd ee ay la kulmaan. waxa ay mari waayeen difaacyadii ugu horreeyay ee ciidamada Xamaas waxaana ay ku dhawaaqeen haatan inay xabad joojin iyagu iskood ay ugu dhawaaqeen. Israel ayaa horey waxay u sheegtay in xabad joojin looga dhawaaqo marinka Gaza ay dan u tahay Xamaas iyo weliba ururkaasi la dagaalamaya, waxaana ay sheegeen in marnaba aanay ku dhawaaqi doonin xabad joojin islamarkaana ay dagaalka sii wadi doonaan tan iyo inta ay ka saarayaan Xamaas marinka Gaza. balse haatan waxa uu caddaatay in marnaba aanay arrintaasi u suurtagelaynin marka la eego haatan siday wax u socdaan. Xamaas waxay samaysteen marino kala duwan oo dhulka hoostiisa ah kaasi oo la sheegay in ay noqotay caqabadda ugu weyn ee Israel haatan ay ku wajahayso marinka Gaza. wax ka badan 200 iyo weliba 20 askari ayaa la sheegay inay kaga dhinteen Israel tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhanka dhulka ah ee Israel dhowr maalmood ka hor, iyadoo la ogyahay in tiro kale oo aad u badan oo askarteeda ay ku dhinteen weeraradii kala duwanaa ee ciidamada Xamaas ay geysanayeen tan iyo 7 Oktoobar markii weerarkii weynaa lagu qaaday gudaha Israel. akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.